caadisan waxa laga yaabaa inuu aabbaha xanuunsan yahay waxa laga yaabaa inay hooyo kadeed badan hayso waxa laga yaabaa in familigu faqri la nool yahay oo culays uu ka haysay noloshaada aad furdaamiso waxa laga yaabaa waxbarashada inaad ka fikirayso inaad dhamayso right now waxa laga yaabaa in dhaqaale xumo jirto waxaad ku hamiyeysiin waxaad ku fikiraysiin waxaad hadda niyadaada ku weyn ma fahmayo aabbaha laga yaabaa ma fahmayo hooyadaaba laga yaabaa ما فهمي صاحبكابا laga yaaba ma fahmay macallinkaagu laga yaaba ma fahmayeen saaxiibadaad raacdiyo jaarkiina iyo community aad la nooshay they don't know ma arkayaan ad waxaad arkaysaa laga yaaba hold on see hay see what hatoojin I know just because I cried that day and I cried this day you are going to get it you are going to get it it's possible وهم وبقلنتا وبحليسا and God is on your side waxaad leedahay ilaah dadaalka aan hakran waxaad leedahay ilaah og intaad shaqaynayso oo ku siinaya waxaanad weydiisan oo ka weyn waxaad weydiisanayso it's true waa run in intaad isku malaynaysa inaad heli kartaa ay suuragal ku tahay believe in yourself hold on one more day see hay kaliya one more day one more week one more year see hay kaliya laba nin baa sheekaysanay waxa adkaysiga la yiraahdo ii sheeg buu markaas uu okay gacantaada fartaada soo dhaxgali gowsayga aniguna fartaadan gowsayga soo dhaxgalinaya sidii bay sameeyeen fartiibu gooskiisa dhaxgashaday ninkii kalena fartiisiibu gooska dhaxgashaday waa la isqaniinay waa la isku hayay fartii baa dhiigtay dhiigii baa labada ka soo dareeray labadii ninba waa la isku hayay mid baa yiri bas I'm done iga daa please iga soo saar markaas uu yiri yes sir one more second haddaad sii joog lahayd one more second just one more second haddaad sii joog lahayd anigu kula dareen baan ahaa one more second aday igu horreeyay that's it just keep it up one more minute hal midino kaliisi wad just one more minute halka dadkoo dhan ay joosteen sii yara joog maalin kaliya meesha dadku ka quuseen inay arkay rajo sii yara joog one day one year one week just one more step I know it's hard محمد علي كلاي baa wax la weydiiyay markaad setup-ka sameynaysa jimicsanayso ee saa u jimicsanayso ma tirisaa markaas uu yiri ma tiriyo ilaa ay bilowbaan inay dhaawacaan I don't count unless it hurts markaan dareemo inay xanuuninayaan markaasaan tiriyaa inta kale aanay xanuuninayn ma tiriyo brother my sister my brother one more day waxaan arkay internet-kan saa u dhaxeeya waxaan arkay sawir maskaxdayda aad ugu dhigay sawirkaas wuxuu ku tusayaa laba nin oo qodaya diamond labadii markay qodeen ayuu midkood joojiyey isagoo hadduu hal mar oo kale ku sii dhufan lahaa sabaradu ku qaraacay hadduu ku dhufan lahaa uu gaaraya the picture shows inuu hal mar oo kaliya sii garaaca kaliya uu diamondkii ku taabanayo wuxuuna ku tusayaa dhinaca kale nin hadda bilaabaya oo aan joogsanayn my brother and my sister ma ogid waxaad ku hamiyeysaa time-ka kaaxiga ma ogid waxaad ku hamiyeysaa intuu ku jiro you don't know waxaad ka fikiraysaa ama waxa kugu weyneed aad ka u dareemayso caadisan waxa laga yaabaa inuu aabbaha xanuunsan yahay waxa laga yaabaa inay hooyo kadeed badan hayso waxa laga yaabaa in familigu faqri la nool yahay oo culays uu ka haysay noloshaada aad furdaamiso waxa laga yaabaa waxbarashada inaad ka fikirayso inaad dhamayso right now waxa laga yaabaa in dhaqaale xumo jirto waxa laga yaabaa qofka kuugu muhiimsaneed u haysato role model inuu arkay waxaad qaban karto I know something some way somehow somewhere sometime ayaa laga yaabaa inay yar khaldan yihiin waxaas inay khaldan yihiin ha u fasirin inaad adigu khaldan tahay ha u macnaysan inay tahay adiga qofka khaldanin hadday duruufuhu khaldan yihiin don't so this all comes down to madaxa kugu rakiban sidaad wax u aragtaa sidaad wax u qiimaysaa sideed adduunyada u aragtaa sideed adigu isku aragtaa all of that entire ka maamul
intaa yare madaxaaga haddaad ka adkaato you're going to win. Attitude is everything. madaxa kugu rakiban iyo sidaad u fikiraysiyo sida maskaxdaada u qorshaysan tahay it's everything. laba qof baa bas wada fuushan labada baska wada fuushan dhinacan ka jooga wuxuu arkayaa jar laga dhici karo oo buuraha dhaadheer ee basasku maraan jar weyn oo laga dhici karo arkaya. The other one sees a beautiful mountain wuxuu arkayaa buur qurux badan oo wada dooga. They are on the same bus. waxa laga yaabaa one of us inuu arkayo qaybta khaldan waxa dhiman waxaan suuragalka ahayn waxaan la heli karin waxa adag baa laga yaabaa ka kalena uu arkayo waxa quruxda badan leh fursadaha jira sida uu suuragal yihiin cidda caawin karta iyo waxa hadduu sameeyo suuragali kara. It's just a matter of focus. waa indhahaaga xaggaad ku jeediso. So waxaan kaa rabaa adiga inaad wax walba xagga fiican ka aragtaa it's not easy. maaha un qof walba ma arko waxay u baahan tahay work shaqay u baahan tahay. shaqadaasina waxa weeyaan number 1 inaad shaqo dadka erido. dadkaad shaqada ka eriyaysana waxa weeyaan naysayriska dadka yuusa ee calaacala. you know one funny thing ma taqaanaa qofka calaacalka jecel wuxuu ugu jecel yahay adduunyada qofka calaacalka ka dhigaysta. naahib laayo meesha waxa ma yaalaan wallahi waa runtaa. meesha waa lagu jabay cibaado waa intii ka tashato wallahi waa runtaa anigu basaasa. qofka calaacalka jecelkii adduunka wuxuu ugu jecel yahay qofka ka tiriya ee dhaha wallahi waa runtaa. qofkay ka go'an tahay ee ay ku aaminsan that I'm either going home or I'm either going home. qofka go'aankiisu ka yahay warano ama gurigeyga soo fadhiisanaya waan iska daynaya waxba ma qabanayo waxba iskuma dayayo waxba ma oranayo cidna ma weydiinayo I'm not going to do anything aan waxba ma qabanayo gurigeyga iska fadhiyaya ama I'm going hard waxa adiga diidaysaan isku dayaya waxaad ka baqaysaan isku dayaya waxaad ka xishoonaysaan u bareeraya waxaad adigu isleedahay ma suuragal aan aaminaya inay suuragal yahay I'm going hard dhinaca adag ee qadaad ee foosha xun leh ee dadku diidayaan baan istaagaya because that's where life starts. qofka go'aankiisu ka yahay is going to live life.